haddana waxaan rabnaa taariikhda halganka oo kooban inuu inoo soo gudbiyo guddoomiyaha jaaliyadda Toronto waxaan ku soo dhaweynayaa Maxamed Qamaan in uu taariikhda kooban ee halganka oo jooxo uu inooga sheekeeyo ayaan ku soo dhaweynayaa هذا ما تتي سنوين تجي فرحتها في الوزن. مرحبا سلامة الإسلام عليكم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. سلامة الإسلام تكذب. waxaan runtii horteeda ka muuqda wajiyo aad iyo aad u qurux badan oo farxada ku dheehan tahay idil ahaanteed markaasoo kale waxaa rabaa inaad sii qotashaan oo sii farxdaan laakiin wada aaminsantiin intaa kadib waxaan horta hambalyo u dirayaa aad iyo aad runtii u diiran reer Toronto oo caawa u dabaaldegaya ama muxuu ahaay u dabashaadaya sanad guuradii 30aad ee jabhadda wadaniga xorinta ogaadaya ay jirsatay hambalyada kadib oo mid ay reer Toronto iska leeyihiin waxaan mar labaad haddana u hambalyanayaa shirweynaha jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya iyo jaaliyadaheeda adduunka oo dhan oo sanadkiiba meel lagu qabto hal meel oo sanadkan ka dhacaya magaalada London oo runtii waqtigan xaadirka ah hadda inuu aan dabaaldegayno xuskiisa aan dabaaldegayno socda ayaan asagana hambalyo u dirayna haddaynu nahay Toronto وقاعد دي بقى اسكت من الوكيالي يا اخوان هاتنا waxaa kaloo hambalyo u diraya oo si gaar ah ugu dirayna dhammaanteedba tudiiran oo runtii ka soo go'day meel ilaahay og yahay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya oo soo jirsatay maanta jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya waxaa la aasaasay sidii aad ogtihiinba inaan wax badan aan faalleeyo runtii ma aha waynu ka wada daragsanahay 1984 ayaa la aasaasay waxayna ka dhalatay halgankii WSLF ee Ogaadeenka ka socday xilliyadaas kadib markii ay siyaasad ahaan ku heshiiyeen dowladda Soomaaliya ee markaa jirtay iyo dowladda Itoobiya ee la dagaalamayay heshiis u dhex maray sidaa darteedna halgankii WSLF halgankii Soomaali galbeed uu la weeqmay ama uu muxuu ahay la burburay ayay ONLF abuurantay iyadoo oo ku talagashay markaas si ay halganka u sii wado oo ay dabkii halganka u sii wado waxaana la aasaasay marka la ku celiyo 1984 halganka ONLF ay hadda majraha u hayso xilligaa bilowday asaga oo aan hana qaadin oo aan runtii awood fiican lahayn ma rabo inaan details badan aan galgalo waqtiga ciriirigu laakiin waan soo koobaya
asagoo aan lahayn oo aad u tabardaran laakiin si qarsoodi ah oo u jiro ayaa Ethiopia burburtay Soomaaliya burburtay iyadoo oo marka aan weli organize fiican noqonin oo aan weli nidaamkii structure-kii iyo dhismihii iyo xagga ciidanka oo aan la fahmin weli ku guulaysanin ayuu Ethiopia markay burburtay ay ogaadeen waxay ka bilaabeen abaabulkii dadweynaha iyo oo aan lafta halkaa joogtay wuxuu keenay in TPLF oo markaa waddanka qabsatay in heshiis uu dhex maro oo charter waxa la yiraahdo ama dastuurka Ethiopia ee markaa ay Tigray wateen TPLF lagu qanciyo qoomiyadaha aynu ka mid ka ahaynay Soomaalida iyo Oromada iyo Xabashida iyo cid walba inuu kiibaan qaadanay dadkii qaatay bay ugu jireen shacab weynaheena oo ay aan la fogaaminayso markaynu qaadanay wuxuu ahaa waxa la oran karaa khayaan u ahaa mar allaala markii ay xoogaysteen oo muxuu ahay iyagu ay isku daba dhaceen oo waddanka si fiican u qabsadeen iyadoo heshiiskii lagu jiro oo markaa ay taariikhda ahayd 1994 ayaa waxaynu isu diyaarinay inaynu qodobkii 39 ee iyagu ay qorteen ee qoomiyadaha ku wajahnaa inaynu ku go'no ama aynu muxuu ahay sabir galayno oo aan dawladda dhex u gudbino aduu sheekada kale wada socotaa inaan ku soo dhaaro ma rabo barnaamijka isaga ah oo inagu aynu rumaysanay laakiin iyagu ay markaa khiyaamadu ku wateen ayaa markii waqtigii ay iyagu gaadheen ay rabeen waxay la yimaadeen inay hor istaagaan hadafkii ummadda oo isku raacday oo ahaa in afti laga qaado ama qodobkiiba la gudbiyo dowladda dhexe inuu gaadho is-afgarawaa markaa yimid si aad ula socotaan xilligaa iyada ah ee aan laga hadlayo oo aan sababa jigjiga goday qabdidahare dhagax buur wardheer meesha la yiraahdo muxuu ahay Shinile sida Shilaabo dhulkaas oo dhan xataa carra Oromo xafiisyo ku lahayd markaas oo wakiilo u joogay oo waxa allaala wixii Soomaali ah iyada markaa mas'uul ka ahayd hadday baasaboor noqoto hadday warqadda dhalashada noqoto wax adag facility ah oo looga baahnaa dadka u baahnaa xafiisyadeeda loo dooran jiray oo markaa heshiiska waxaan tilmaamayaa oo dinsa wadahay heshiisku siduu ahaa arrintii noocaa ahayd markay nimankii stage ay doonayeen soo gaareen oo xogaa awood yeesheen oo baa subaxii dambe waxaa la arkay madaxdii gudoomiyaashii waxgaradkii dadkii muxuu ahay aqoonyahankii lama soo tirin karo una waxaa loo imaanayaa meydkoodii oo suuq habeenkii magaalada dhex yaallay war dadkan yaa lahay iyadoo aad loo yaaban yahay umbaa markii dambe hadda si cad waxaa loo arkay iyadoo gumaadaysa waxgaradkii la ogaadaya ما بهني هذا هبل يراهض والله صوتان ولما أي تراهض لما عاشق إيضا أنتي لو عرفتي يوم مرة أنتي اللي فهمي ماشي وحكي السعودان للي يابيه ولين أنت الأمر القادم باي وحي شقاق قسمية قدوميه جراد وطني وحريت وقاله شيخ إبراهيم عبد الله أي شقاق قسمية وصار واشق السعودان تجي dhulkan xagga jigjiga iyo dhagaxbuur ayay waxay hoosta go'aan ka gaareen in intii la qabto muddo Allah ya raxmo caawin hooseeya markuu arrintii ogaaday waliin kala sheekada marka shirkiga go'aan baa horeeyay gudoomiyaha Sheikh Ibrahim xilliga doortay baa iyaduna jirtay waxaa soo dhamaan soo dhaafay waan ka badboodaya marka Sheikh Ibrahim Abdullah markuu arrintii ogaaday Allah ya raxmo ayuu xoogaa yar oo ciidan hoseystay iyo baabuur uga tegay oo kala soo baxay dhulka caasi iyo muxuu ahay xagga dhagaxbuur iyo jikkorbu ka yimid wardheer buu carab ku yimid iyagoo in rababa inay qabtaan oo kuwii ciidankoodii wardheer jooga wardheer deganaa iyo kuwii eryanahay waxoo dhan ay isu yimaadeen oo adu markaa go'doon inay geliyaan ay rabaan oo runtii tiisu baangel waxaa runtii geesinimo aad iyo aad cajaa'ib u ah oo dadku inay ogaadaan loo baahan yahay muujiyey shacabkii reer wardheer
gobolka Doolo dhammaantiiba dadkii deegaanada isu qeyriyay looma kala harin waxay si dhab ah u difaaceen oo runtii ay dad badan ku dhamaadeen gudoomiyaha wadaniga jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya gudoomiyaha Sheekh Ibrahim Cabdallah oo markaa ay rabeen inay waxay ka mid ahayd dhacdooyinkaas arrintaas waxay ka mid ahayd dhacdooyinka cajaa'ibka ah ee reer ogaadaya soo maray mid ka mid ah 8 ruux baa lagu qiyaasaa dadka ku dhintay halkaas looma kala harin maalmaha taariikhiga ah muxuu ahay national day in sha Allah markay ogaadaya xorowdo soo geli doona ayay ka mid tahay calaamadaysan maalinta ayada الفصح كل شيء يدرتان بريهم إن شاء الله إلهي مكمل بحي إن شاء الله الجميع جمعت إلهي مكان معناتها يلا وكمل بحي هل كذا هو شو بيجي سعودي مركز وحاول أعرف وحي وقعتي إن أوير الصعود نبقى وضيعه hanti dawaan markaa ay lahayd waxay ahayd hada si fiican u dhageysta si fiican bidiin u furo hantida ay oo la fuqti ayada haysatay waxay ahayd $200 US ururka oo la fudhan waxa uu haystay markaa iyo $700 oo lacagta Itoobiyaanka ee birta ah iyo hal gaari oo xaaji 50 oo la bishiray iyo 70 wiil oo ciidan waxa uu dheeraa ma jiro shirkada galeen waxa lagu aansaday oo la tabarteedu xaq lagu socotay markii ay intay soo aansatay inay dagaal gasho ilaahay baa maxad iska leh go-aankii markay ku dhawaaqeen dadkeedii meel u joogo wuu taageeray from that day ilaa iyo maanta marxalado maalinta ka dambaysa runtii lagu naaloon karo oo horumar leh ayuu horta halka ku gaaraya waad la socotaan waxay oo mid abaabushay oo waxyaabihii bayska u ahaa halka ka mid ah number 1 ciidan bay horta abuurtay number 2 bulshadeedii bay wax bartay oo ay abaabushay oo ay hawl gelisay number 3 arrimaha dibadda ama siyaasadda caalamka ayay xoogga saartay saddexdaaba way ognahay maanta sida ay yihiin cidna way bajeen oo awoodda ugu sarreysa ee geeska Afrika inay tahay maanta nin walba geeska Afrika iyo dunida ama rumaysan waxa cadowgu uu sheego hadda halkan dhageysta ama rumayso ama rumaysan kelmadaha cadowga uu soo gudbiyo ee dadkiisa asaga u shaqeeyo u soo dhiibo ee waxa magaradka iyo dadka masaakiinta ah loo soo gudbiyo ama rumaysta ama rumaysan laakiin oo maanta waa awoodda ugu sarreysa ee geeska Afrika markii laga rabo dawladda Itoobiya ee la dagaalamay sidaas darteed weliba waxaan odhan karaa wuu socdaa dhismihii waxba way ka qaban weyday dawladda Itoobiya oo aan marka waxyaabaha muhiimka ah ee runtii u baahan in lagu hamliyeeyo waxaa ka mid ah waxay inoo dejisay nidaam runtii dhaxalgal ah oo ku salaysan isku tashi waa adduunka oo dhan baa ka yaabay arrintaas waysanaankii baa ka yaabay islaamkii baa ka yaabay cid walbaa ka yaabay 30 sano oo 4 gees lagala dagaalamayo oo cid dhaqaale muujinaysa aysan jirin oo dawladda ku tirsan tahay aysan jirin oo dawladdu ugu awoodda badnayd geeska Afrika iyo Afrika oo dhan ay waxba ka qaban weyday waa isku tashigii Ilaahay ahay atalada saaray marka arrinta ayada hadda ka hadlayo isku tashiga haddii aad si sahlan oo yar fudud aad isu yar dhaafiso
وأنا حكمة ضوئية معنا بدو هو سمين مايسو لكن هذا أنت فريسة فكرته وعن سكوت طيب أنت هنا تسيب عن روح سكوت الشجاع مركها واحد فهم يساه واحد فهم يساه والأرك يساه واحد كان يسوق كرتين بوش ما أنت إنه كان أنا أركاته مركها لا يسوي تجد حالي الأقالي وحالي العينك وحالي البوليس بولشدي وحالي الدريراني وحالي الهويوينك وحالي هيدي عفماتك وحالي هيدي ورفافنتا وحول وحاسو دنبا انت اللي تكون جانبوي او استراكشر كودر اللي سؤول لنامي وضقاليه اي كل دقاق لهاين كل شقين لهاين اللي بتجي وتكون مهزمتين صوتك سنة شايلة لبعض سنة أو كملة ضدك جرب تاعنا اسكتشياس هو هي البلد تاعنا بتكملتين من قوات ما جت الهدية أنت كتب ما أنت ما راح أيام السبعين سنة أي هكسر السعودي ما أنا كوينا مسجد هذا وقليها بين الساعة وحاول وقطوان لف قريت وقاعدين إني قرك وصارتها قرك إني وصارتها ورمتي ماشي أي ربتي أي تاجتها أي أوان لف ما أنت بحث عطوا من سائر وقته هذا بس إذا أصدرته عينوبة هاي وحينوبة هاي ويقدر دارنا إنه لغلابنا وحلال وحي أينو بان هايوان لفينا إنه كوجارسين أما إنه كتاجر أما إنه وحكاين أما إنه هو هيرنا وحينو بان هاينا والله أنت وارد مهم وين حينو بان هايحوق إنه والله وحال دي شيء هي سنة كي هو مركي إنه هذا الوجود بردك إنه سنة دوري سجال لما تنادي شباب ودني كحرت وقادية شال يلها الدوم هي وقادية وحكم قومنا لحدن يا أفر لحدن يا أفر شال يدور أيها شال يلها السم إسكو تاجر ما أنت وحي مرة هي مركي لقى وصوت أفريقيا وأول هالشال يسكوها هنجتي لكن هذا أنت إسقاله وأوده يبغى لك قيمة وإلا يشان لح تطور شال يلقى لكن هل شال يكون كسر مركي لقى لحدا يلح شال يدور أي مرة هي ما أنت سنة كم maxaa soo qoray markii salooda ku soo qoray waxaan u leeyahay 29 iyo 60 iyo 6 baya 60 iyo 4 iyo 60 iyo 6 maxaa ku soo qoray laba jaaliyad ku soo qoray laakiin waxaa jira South Africa oo hal jaaliyad ku jirtay baa laga qeybiyay ilaa 7 jaaliyad oo ka kala saaray oo haasi hoola runahanti waxay maanta maraysaa meel adduunkii oo dhan uu baryahayo oo la leeyahay kaalaya oo muxuu ahaayay aan idinla hadalo oo aan dhexdhexaadino ayada ayaa choice iska leh doorashada ayada iska leh maxay ku yeelatay run ahaantii waxaa la aaminay oo la arkay inaan cidina loodin karin arrintan hadda markaan ka hadlayo dadku qaar baa laga yaabaa inay isleeyihiin waa iska faan ma aha oo aan waxay ku guulaysatay أنت جبت وحيابها يكون كل زين أوبها حسيت المسكحة إن أنا كشل دونها وحكملها حطينا أوان نفتكر لهين لبعتني يشم مليون وهاي قرر لكن إثيوبيا نورث كذا لكن فما أنت واحد بجنا لهاي قبدان قولي خلاف شرابة وردان دعبور تشيكا كله بجنا لهاي imagine الكارثة اللي يتوبي وحياة ممكن أنا عسكري أنا أخذت وضبكي أنا حكومة مركي imagine هدينا محبطة شو حد يسمى جري لهين أم أين جري لهين ما أنت ممكن تسوي إكان لها قلت صومالي الوبادية سووا إكان لها برادو يسوي دي قضك وقضك لبعض أصلا مهم وحوي قلت أنا وحكم بخيرات نوع والله خيرات هاي ممكن تكون
meel allaal meel tufidin maaha waxay isku dayday oo China ay ugu yeeratay oo Ingiriis ugu yeeratay oo Mareykan ugu yeeratay oo Malaysia ugu yeeratay oo waliba magacyo kale oo kala duwan oo iyada xal u samaysatay in la soo saaro khayraadka ogaanaya ee adigu aad leedahay oo iyadu isticmaasho ay la tagto oo maqalo lagu maalgeliyo idinka sheekeyn maayo wada socotaan marka wixii ka dhacay al'aankan waa sidii bal maskaxdiina dib uga fakera haddayna aan fikir lahayn dhulkeena siduu masawir ku lahaan lahaa ama siduu ekaan lahaa qayb ka mid ah weeye inaad iska caligelisaan shidaalka ogaadaya oo loo daldalanayo oo dhuuma inta lagu xidhay maqalo loo dhoofinayo oo adduunka laga gadanayo oo Itoobiya lagu gaajitirahayo oo adigiina aadan jirinba bal sawirkaas weydiiya sidaas isu weydiiya intaas ilaahay baa mahad iska leh jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya iyo wiilasha u shiinayana mahad iska leh gaar ahaan way farbadan yihiin inaan hadalka sii dheeraayo ma rabo maanta waxay soo gaadhay si international ah oo caalamka oo dhan uu indhaha ku hayo oo weliba ay iyagu involved ku yihiin oo iyagu aad u danaynayaan in miisaska caalamka la soo fariisiyo la yidhaahdo idinka Ethiopia inay heshiisiinayaan hadda ka horna waxaa dhici jirtay ama socotaan in kala mooyaan weligeed Ethiopia waxay dhici jirtay maxaan kala hadlay la hadli maayo waxay diiday inay aqoonsato waxay diiday inay la hadasho waxaa u fiicnaydba siyaasadda ka maqan oo innaga runtii waxa weeye ilaahay baa garab marnay waxaaba iyada faa'iido ugu jirtay inayba arrintan heer ka gaaray 1994 aan sheegay heshiiska la galay inay inta si kaas sabato inoo daadiso maxay gogolka inoo fidiso oo ay iska sabtaan inay aayar sidii ka koro inuu yimaadeen inuu soo dhex galaan oo yiraahdaan markaalay waasidiyo markaalay duqeydiyo markaalay ciidankiyo madaxda oo maarag وشلاس لكن وين إنكرام وحين هذا النوع بتشتغل محاين كلاه ضينا أريكي بوحوك ما أنت ميس عالمي يعني إثيوبيا سوف يصير تولي ما ويبريتون إنسان والله والله تعطى وفود بصوتك وفود بها صوتك تأتي ولا صهر وما تبغى هذا في اليوم ولا صهر ويبريتون إنسان إلهي ما هذا سكره ciidanka waddanka xoreynta ogaadaya waa mahad iska leh madaxda inuu hogaaminaysa ee runtii u bisil siyaasadda iyo hogaaminta ayaa iska leh shacabka taageeraya ee reer ogaanaya meel jooga ayaa iska leh mahadaas ama hadalkay ku sii dheeraanaya waxaan mar kale idinku mahadcelinayaa idinkuna hambaliyanayaa sanad guurada soddonaad ee jooxo ee aad sida badan quruxda noo soo gasheen maanta aad muxuu ahaay u dabaldegaysaan waxaa kaloo marka iyadana aan xasuusinayaa hadda koona hadalka waa yara lahaa qof walbo hadalka aan hadda soo wado waxaan kaa codsanayaa waa codsi maskaxdaada geli adoo keligaa ah ka fikir ma jiraa caalamka adduunka ma jirtaa meel shaksigu hadduusan asagu wax qabsanin loo qabto si fiican ma u dhaha waxaan ugu gudbaynaa marka group ama koox meel isugu timid oo iyadu haddayna dadaalin wax qabsanin dad kale inta u yimaadaan wax u qabtaan ma jiraan waxaan ugu gudbaynaa marka ummad hadda ogaada ummad markaan leeyahay waa wadamo waa sida Mareykanka Ingiriiska Canada ogaadaya Ethiopia Kenya South Africa waxaan isku dar wadamadaas weey ma jirtaa ummad ama wadan dadkeedu hadduusan u istaagin oo uusan wax u qabanin oo uusan u fikirin ama ka aqoonta ha ahaado ama ka dhaqaalaha ha ahaado ama midka muxuu dhalinyarada ha ahaado haddaynan ummadiisu u istaagin oo wax u qabanin oo wax ka dhigin ummad kale inta u timaado wax u qabato miyuu jira adduunka إيه مرة هذا سفي عما يقول حريت معنا وكذا وهذا يبغى وسلاس هذا من إنه حق وحق قصة ويهلك الكل هذا
لكن نسيطره ويمشي غيره ولا يمشي غيره والله وحنا على واحد غيره ما أنت ما أنت أقدر تأتي وهو مستعماش وبيس وهو بيسكت برنامج اليوم بلوزك وحاول كم شيء هنا حاول يخلي موانئ ما أنت بحب أنت أوكي أنت هذا أنت أسوأ أنت وحنو بهم هاي واشيء إن النطاير إن الغلام إن الكرس وقالنا إن هاي سيطة أو كلسوني كجرتو أو هاي الرأنا إنه أقرب استعمال هالجنك أو وين قرب تعمل أسيب